Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil oo ka mid ah salaadiinta gobolada Awdal iyo Salel oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Saylac ee gobolka Salel isla markaasina uu joogay xalinta arrinta Saylac ee muragu ka taagnaa ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Boonqulujeed iyo Boorama kaasi oo ay soo dhaweyntiisa iskugu soo baxeen kumanayaal dad ah kuwaasi oo ku dhawaaqay ereyo ay ku taageersan yihiin suldaanka iyo wafdiga uu hogaaminayo. Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil ayaa dadweynihiisa soo dhaweeyay kula hadlay meel fagaara ah isla markaasina waxa uu ku dheeraaday sida ay ugu guuleysteen arrinta Saylac ee ay ku dadaaleen inaan la garab marin sida uu dastuurku dhigayo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ناموس دغيست نشرنا مركو شيدنا كيفتيمي انت الكين ودا شرنا ما ودا شاورني كبدي شليبان كوري شبطي وينا انت كلوان دين محلقي سيدا لو سو دويسين iyo dhulkiina aad ku farxaysaan aad baan idinku mahadnaqaynaa ma sha Allah soo dhaweynta iyadu waxba ma aha qadiyadiina aad garanaysaan taasaan idinku soo dhaweynaya ma sha Allah taasaan anu idinku mahadnaqaya waxay taladu dheeldheelido dhagadka jiifnaaba aniga iyo dhigayga waxaan dabaradeegnaaba shalaan wiilashii dhaarinoo dhiilku buuxsamay warkii intaas horta idinku dhan yahay si kastaba ahaatee soo dhaweynta suldaanka ayaa si weyn looga dareemayay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal maalmihii ugu dambeeyay. Khadar Maxamed Xasan Labaqayle TV caalamiga Soomaaliya magaalada Boorama.